بسم الله. waxaan ka hadlanaa addictionka muxuu yahay qabatinka dadka maxay qaar wax ugu qabatimaan qaarna aysan wax u qabatimin. cilmi baarayaas waxay yiraahdaan waa pathological xanuun dadka qaar ku dhashaan. qaar kale waxay yiraahdaan waa qof traumatized child, waa qof caruurnimadii dhib badan soo maray, ama xagga hooyo ama xagga aabe ama xagga iskuul ama iyo badanaa qof kufsi iyo hawlo iyo arrimo adduun ku dhaceen markuu yaraa, adigu ilaa uu soo koreeyey, ilaa dee intuu weynaaday, adigu qof dhib soo qabtay baa maskaxdiisu badanaa waxay noqotaa maskax addiction oo wax qabatinta. dadka qaarna waxay yiraahdaan waaba wax dadka qaar ku dhashaan oo jiinahu dadka qaar leeyihiin. si kastaba ha ahaatee dadku kala duwan yahay. dadka qaar baa jira qof baa jira maanta qayilaya, berito aan oranayo ruuxan dee maanta xoog ma haysidii waa iska caadi, iyo qof waalanayo oo 12 maalintii raadinaya. marka dadka addictionku ku dhaco qabatinka leh baa laba u kala baxa. qof wuxuu qabatimayaa oo ku dhegaya diinta, jim, biraqaadis, qof riirin, qof maado, qof sportiska, qof social iyo dad soo jiidasho iyo farxaanimo, iyo qofba waxbuu ku dhegaya. qof wuxuu ku dhegaya qaadka, qof daraagu ku dhegaya, qof wuxuu ku dhegaya seksiga, qof wuxuu ku dhegaya alcohol, qofba waxbuu ku dhegaya. marka qofkii wax fiican ku dhega, inkastoo la yiraahdo wax kasta is good at moderation, everything is good at moderation, yani wax kasta waxay ku fiican yihiin dhexdhexaadka. yani diinteenuna waxay tiraahdaa wax kasta waa dhexdhexaadka. inkastoo wax kasta ku fiican yihiin, si kastaba ha ahaatee haddii aad wax diin haddaad ku dhegtid, jim haddaad ku dhegtid, wax khayr leh haddaad ku dhegtid, dee positive bay kugu leergaraynaysayo waqti dheer ka bacdi faa'iidaad ka qaadaysaa. laakiinse haddii aad ku dhegtid wax meel xun kugu leergaraynaya, kugu hogaaminaya, meel xun bay kula aadaysaa, sida qaadkoo kale, sida daraagoo kale, sida alcoholkoo kale, sida saksigoo kale. waxaasoo dhan meel xun bay kula aadayaan, waa wax xun. haddii marka sida siigadoo kale, haddii marka aan xagga aan eegno dadka qaba waxyaalaha xun sida saksiga iyo alcoholka iyo waxyaalahaas dadka ku dhegaya, haddaa xaggooda eegno, qofka waxay ku keenaan wax laba wax bay ku keenaan. qofku wuxuu moodaya wixii inuu yahay. hadda qofka alcoholka caba, ama qofka camal dhilaygoo kale noqda, ama qofka alcoholka kale caba, qofki wuxuu ismoodaya inuu xun yahay oo dadka ka xun yahay buu ismoodaya. kadib wuxuu isku sii badinaya, la qabatimaya, wuxuu isku sii badinaya. waxaad samaynaysid alcoholkana xune, adigu dadka kale kama duwanin, qof fiican baa tahay. waa in qofka horta marka hore taa fahma. qofku dadka kama xuma, waa caadi baa tahay. wadaadka iyo adigu ilaahay ba u simantihiin, caadi baa tahay. isku uur baad gasheen, 9 bilood baad ku dhalateen, keliin baad tihiin, xagga ilaahay isku mid baa ka tihiin, waad fiican tahay, qof fiican baa tahay. laakiinse camalkana samaynaysaa camal xun ah. haddaad camalkaa iska daysidna waa fiican tahay, ma xumid. qof ahaan adigu ma xumid, ficilka xun qof ahaan waa fiican tahay. qofka horta marka hore inuu sidaa fahmo aad iyo aad bay u fiican tahay. laakiinse qofkan wax muxuu samaynayaa ma fahmi karo arrintan. marka waxaa jira society-ga hadda dadkan adduunka haddaan ku noolnahay waa hypersexualized world way. waa adduun laga raacay gabdho yaryar oo dabada ruxaya, internet, balaayo, sawiro, wax uunba heeso. qofka qalbigiisu shahwada ku jirto, xanuunka dabeeciyanka laqabatinka addictionka uu qalbigiisa ku jiro, adduunkani waa adduun aan saacidaynin oo meel kasii tuuraya. marka aad maanta maqashid wax saa isu lulaya, wax sidan, wax fidiyo sidan, internet saa isaga furan oo 100 iyo 1,000 nin iyo 1,000 naagood isku xaynaya ku jira, waxa weeye isma qaban kartid wixii baad awalba ku waalayd. waad marka iskama qaban kartid. marka waa inaad ogaatid adigu waxa aad qabtid
xanuunkan aad qabtid inuu yahay ficilkani inuu yahay ficil xun dhibtuna aysan adiga ahayn aadna qabtid addictionoo maskaxdaadu ay doonayso farxad xaraarad ay doonayso inaad fahantid weeye